EU ideas aan ka helnay iyo lacagaha ay dawladdu ku bixisay county government of Wajir wada jirkaas oo wada shaqaynta aan ka qabanay guriga xoolaha lagu qala oo aan soo aragnay Makaror oo lagu magacaabo Makaror Slaughterhouse iyo ugu dambeyn guriga hadda ugu dambeeyaan soo aragnay oo kii loogu talagalay sidii warshad ahaantii oo hilibka yiri loogu talagalay inaas lagu sameeyo farsamadaas loogu talagalay in lagu sameeyo ayaan soo aragnay wuxuu dhahay iska kaashigaas ugu noogu mahadnaqay ninkii ka socday EU ideaska annagana waxaan mahadnaq ugu celinaynaa EU ideaska sidii ay nooga caawiyeen lacag bixintaas oo lacagta annagana dawlad ahaan inta aan ku darnay aan meesheeda ka sheegnay arrin wanaanshiga u taamyeeli waay maxaa yeelay xoolaheena waxa waay dhaqaaleen xoolo ay cuskan tahay marka arrinta hadda maanta aan u imaadnay arrintii kawaanka iyo arrintan hilibka iyo caanaha marka maamooyinka iyo dadka xoolaha ama beeralayda waxaan idin xaqiijinaynaa inaan ma aragtay asla shaqayn doono insha Allah aniga hadii wasiirka aan nahay waxaan rabaa in kasta aan la shaqeeyo oo maalgelin ku sameynayaan camel meat facilities iyo milk oo isla socdaan markan taasayda waxay nagu dhalisay inaan meel dheer oo hadda aan wili aan gaarnay marka hore hilibka maamyaasha lagu hayo mindida laba suuq special shaqo ay gashanayeen haddana alxamdulillah facilities loo sameynaya taas waa mahad weyn oo gaarnay aan horumar midda ku xigta caanaha iyagana kulay way soo socdaan wixii qalabkooda hordhiciisa waxaan ka aragnay trainingka noola sameeyay last week waxaa jiray training lagu sameynayay midpoint oo bilcamo badan across the county la isku keenay taasna aad ay ugu mahad celinaya marka waxaa kaloo jirta inay tahay shaqadan shaqo ku cusuban wadanka hadda anaga aan joogno farsamada hilibka iyo farsamada caanaha laakiin ka wadanka kale oo Kenya aan joogno caanaha iyaga farsameeyaan waa caanaha lo'da oo kisto naga yar horumarsan laakiin maanta waxaan joogay a summit of African Union oo hadda caanaha geela naftinkooda iyo hilibka aan la aqaanin apart from Northern Africa iyo East Africa hadda anaga aan joogno ma hayn inta kala caanaha geela iyo hilibka geela inay jiraan inay jirin hatta lama aqoonsano laakiin hadda waxaan aragnay in hilibka iyo caanaha la aqoonsan yahay oo meesha hadda aan joogno alxamdulillah meel ka dheer aan u sii socono midaas waa mahad ilaahay nabashkuru ayda waxaa la yiraahdaa Zainab Xuseen oo ku nool countiga Wajir waxaana ka shaqeynaa dhanka hilibka yirinyiriga hilibkaas oo muddo 7 sano ah aan ka soo shaqeynahayne shaqadaas oo wixina soo baray xafiisyaha oo na keenay ay tahay hay'adda gargaja way ku mahadsan tahay aqoonta ay noo yeeshay haddana maanta ay xafiis ay nasiisay oo noo furi haysa tii ayadeed horta gargaja ama hadda nagu celin haynaa midda kale dadka maalgelinta nagu sameeyay oo dibadda nooga imaaday oo aqoontayna xifdiyay way ku mahadsan yihiin mahad weyn baanu celin haynaa midda kale annagoo aqoon lahayn guryaha la fadhina hilibkayna gacanta ku jari hayna ninkii aqoon weyn noo soo yeelana soo xambaaray xafiisyaha nagu soo duubaangeli oo hay'adda gargaja wacyigelin waagadan imaanay maanta dhexdooda nagu soo waday way ku mahadsan tahay inta ka hor shaqayni iyo inta aqoonta noo yeeshay waa mahadsantihiin taasaan kugu mahad celinaa wa salaamu calaykum wa rahmatullahi